musharax xildhibaan golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Jamaal Maxamed Xasan Dhoore oo uu taageer kursiga tirsigiisa uu yahay hoob 274 oo deegaan doorashiisa ay tahay magaalada Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne. musharaxa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, dhalinyarada, haweenka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle. musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya Dr. Jamaal Maxamed Xasan ayaa soo dhaweyn kadib loo soo galbiyay hotel Xasan Dhiif ee magaalada Beledweyne halkaas oo dadkii soo dhaweeyay uu ugu sameeyay qada sharafeed heerka dhicitaankeeda uu sareeyay. ugu horeyn qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qayb galay soo dhaweynta musharaxa oo iskugu jiray odayada dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo aqoon-yahanada oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid u sheegay in Dr. Jamaal uu qalma kursiga hoob 274 isla markaana uu matali kara dadkiisa maadaama uu yahay aqoon-yahan dhalinyaro ah oo dadka iyo deegaanka wax tari kara xilligan. Jamaal haddii aad rabtaan inaan idinkaga sheekeeyo waa wiil yar oo Beledweyne ku dhashay, dugsi hoose dhexe sare Beledweyne uu kaga baxay, jaamacadna wuxuu kaga baxay Xamar. aabihiisna waa nin la yaqaano nabadoon Maxamed Xasan Dhoore la yiraahdaa. warka faahfaahintiisa anigu bilowgaan leeyahay, akhyaar iyo waxgarad badan baa igaga dambeeyo. maanta Jamaal Dr. Jamaal loogu yimid oo lagu soo dhaweeyay in loogu yimaadaan taas waa mid labaad. Jamaal oo soo dhawaaw waa ku baahneen takhtar waa u baahnahay, doctor wax dhig waa u baahnahay, nin kasta oo aqoon waa u baahnahay duulayna. ninkaani waa ninkii dadku ay u baahnaayeen. dhammaan reer Beledweyne wuu deeqsin karaa, wuuna ku filan yahay xirfadiisa aqooneed ee dhakhtarnimo. wuxuu awoodaa inuu 2 bilood ugu shaqeeyo lacag la'aan si caafimaadkooda u baaro dhammaan nin yar iyo nin weyn. ma aha inuu musharax u yahay beeshiisa keliya, wuxuu musharax u yahay dhammaan reer Beledweyne oo dhan. waxaan ognahay oo xaqiiqo ah oo cid waliba ay ogtahay inuu faa'iido u leeyahay ummadda, inuu faa'iido u leeyahay degmada, inuu faa'iido u leeyahay gobolka. waxaan leenahay Jamaalow soo dhawow kulan bariyaan kala maqnayno waa lagu basaasee bahda dhammaanteed kii barwaaqeeyo na badbaadiyo noqo. waxaan leeyahay Jamaalow haddii Ilaahay yiraahdo bulshada halkan fadhiso kama koobna waxay ka kooban tahay hiiraan oo dhan ayaa maanta ku taagan. nasiib baad leedahay in badan musharaxiin soo dhaweynay, musharaxiin bari iyo qoracsin hiiraan inta ku nool ay iskugu timid kii ugu horeeyay ama kii labaad ayaa tahay in lagu jecel yahay sidaas ku ogow walaal soo dhawow. waxaan ka rajaynayaa inaad noqoto kii tabca magac ka taga taariikh oo dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeyo noqdo in adigoo 4 sano markay ku dhimaato la duceynayo in noogu soo celiyo leeyahay doon inaad ka digi doonto. kun jeer baan ku soo dhaweynaynaa walaalo soo dhawow, wiilkaynu soo dhawow, waalidkii wanaagsan ee ku dhalay ku soo dhawow, walaalaha ku soo dhawow. runtii in oo ka haro goboladii kale runtii waxaa sabab u ah dad siyaasiyiin ah oo runtii aanan fahmaynin horumarka iyo waxtarka gobolka Hiiraan. marka waxaan filaynaa hadduu alla idmo ninkan dhalinyarada ah aqoon-yahanka ah wax badan dalkan u soo joogi, Beledweyne ku dhashay, ku barbaaray, wax ku soo bartay in runtii wax badan oo ka bedeli doono. waxaan leenahay ku soo dhawow mudane xildhibaan, dadkaadii deegaankaadii waan ku garab taagannahay, waana kula shaqayn doonaa haddii aynu nahay haweenka. mar labaad waxaan leenahay mudane soo dhawow. mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo kala ah gudoomiyaha maxkamadda rayidka gobolka Cabdiraxiin Maxamed Taakoy, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Axmed Cabdulle Inji ayaa si wadajir ah u sheegay in Dr. Jamaal uu yahay nin dhalinyaro ah oo u qalma hogaaminta dadkiisa
iyo deegaanka Hirshabeelle. annagoo reer Hiiraan oo isku duuban reer Beledweyne isku duuban walaalkeen oo nin dhalinyaro ah nin aqoon-yahan ah nin Beledweyne reer Beledweyne ah la yaqaano macruuf oo min al-macruufiina kamid ah inaan mug iyo miisaan lagu soo dhaweynay marka soo dhaweyntaas ayaan insha Allah taala intii soo dhaweysiyaan la qabaa maanta waxay gacantiina ku jirtaa qofka aad dooranaysaan nooca uu yahay qiimaha uu bulshada ku leeyahay waxgalka iyo waxtarka uu bulshada ku leeyahay runtii doctor markii la yiraahdo waxa kugu soo dhacaya waxa waaye qof walba waxa uu ka fikiro waxa waaye waa caafimaad dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed mar walba waxay dhahaan dawladda ayaa dhibka keensatay madaxda dhibka keensatay madaxda ma keensanin xildhibaanka aad keensatay oo yaashiina sharax xildhibaan Dr. Jamaal Maxamed Xasan Dhoore oo si kooban uga hadlay munaasabada ayaa sheegay in waxyaabaha uu isku soo taagay ay tahay si uu dadkiisa ugu adeega asigoona si kooban ugu hadlay hadii uu guuleysto waxyaabo uu qabanaya ma qiyaasi kara maanta dareenkayga sida uu yahay sida milgaha iyo sharafta leh ee aad ii soo dhaweyseen bah iyo boqor sida aad u dhowtihiin ee aad salaada subax markaa tukateen ilaa hadda aad u tagantiin laga yaabaa qaarkiin inaysan weli wax biyo dhaafsanaysan cabin aad baan idinkaga mahadcelinayaa mahadcelin ee bakasakow runtii maanta waxaan dareemay inaan imid magaaladii aan ku dhashay ku barbaaray ku hanaqaaday ku waxbartay maantana aan rabo in matalaadeedii aan golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya aan ku matalo dadkaygii iyo deegaankaygii waxaan dareensanahay maanta ay sameeyeen soo dhaweyn muddo miisaan leh oo aanan dareenkayga ku soo kordhi karin inta haddii aan kaga gudbo soo dhaweyntii dirnay quraantii reer Hiiraan ama gobolka Hiiraan ee aan naqaano wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan 6 gobol ee Soomaaliya gobolladii kale way farcameen balse gobolkan weli uusan farcamin weli waa asal waxaan shacabweynaha reer Hiiraan aan ku dardaarminayaa ama aan kula talinayaa sida gobolkoodu asalku u yahay in ay doortaan siyaasiyiinta asal ahaan halkan ku dhalatay ku barbaartay ku hanaqaaday dadkoodii iyo deegaankoodii ay joogaan waan sinaba gobolkan danta iyo duruurtu soo marayaan inaha kaga qarsan karin tusaale yar haddii aan idin soo qaato aniga hadda idinla hadlayo inta ogaalkayga afarfa aabbahay iyo labadii sii dhashay oo magaaladan Beledweyne ay ku dhashay iyo tuulooyinka hoos yimaada Soomaalidu waxay tiraahdaa asal waa maguuraan waxaan aaminsanahay inaan reer Hiiraan maanta leega ahayn xaalad kasta ee gobolkan uu ku sugan yahay yacni damiirkayga iyo dadanimadayda ayaanan ii ogolaanaynin inaan ku fiirsado wax gobolkan dhibay Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Telefishinka 5 Beledweyne